shacabka Soomaaliya xaqiiqadan u sheegaya horta lacagta la qabtay 2018ka garsoorka ayaan uga dambeynayna anagu wixii sharci ah ayaga looga dambeynaya xiriiraaliyuhu saasuu yiri saas 2018ku baa 9 milyan baa ahayd dalkanaga markay arrimo dibad markay imaado dawladda ayaan la ka dambeynaa taas wax caadi ah laakiin waqti baa soo socday xogaa xiriirkii sidoo hore ma ahan oo wada hadal baa jira imaaraadku aan waxaan ka mid ahay dadka ka soo horjeeday arrimihiisii markii la eego dekedaha DP World markii la yiraahdo arrimay fargalinayaan laakiin 2018 ilaa hadda xiriir ayaa jirta anu diblomaasi macnaha waan garanayaa in taas ugu daayay ahayd haddii xataa la qabsanayo ra'iisul wasaaruhu markuu fasaxay lacagtooda inay maxkamaddu ka hadashay ahayd maadaama xogaa uu jiro khilaaf madaxweynaha ra'iisul wasaaraha tiimka isaga la jira ayaa garsoorka weli kama milmin oo madaxweynuhu wuxuu isticmaalayaa awoodii saaxiibadii inuu siyaasadda pressure uga dhigo taasna Soomaaliya ay saameynaysaa laana waxay ahayd haddii la sameynayo waqtigii uu ra'iisul wasaaruhu yiri lacagta waan u celinayna marka inuu maxkamadda hadasho maanta markuu tagay imaaraad in la yiraahdo waa khalad ka soo baxay xilliga naftirkeeda xafiiska madaxweynaha warqad ka soo baxday xilliga naftirkeeda oo tiri in ay sheeg lagu amray in aan bangiga laga bixin karin laakiin fulinta yaa iskale ra'iisul wasaaraha waa meeshii ugu sareysay madaxweynuhu waa sax waa madaxweynihii hore waqtigiisu uu dhamaaday arrintan fulinta arrintan fulin markay tahay golaha wasiirada ayaa shaqada iska leh oo hoos imaanayaan wasiirkii maaliyadii cadaaladii waxaas oo dhan ba amnigii waxa dhan ba okay laakiin aanu ma dhaxgalayo maxay isu khilaafeen waxaan jeclaan lahaa anagoo tartameena inay waxyaalo qaar aan la taabanin dhinaca kale imaaraadka nabadii nolol xogaa waxay u yar aragtay anu waxaan ka mid ah dadkii dawladda aad u soo taageeray wadaniyadu ma ahan in dawladda qaar la naco maamulo gaar la naco cidii ka hor imaada la yiraahdo daba dhalif waa khalad imaaraadku waa dal islaama ururka waxaan ku wada jirnaa ururka carabta ku jirnaa ururka islaamkan ka wada midnahay waa dal xiriir naga dhaxeeyo marka in la siyaasadeeyo arrimaha dibadda caalamka nala yaabaya waana arrin laga maarmi kara dabcan laakiin garsoorka markii la yiraahdo si kasta oo aan ula jiro mucaaradahay waxa iskale gobolka banaadir ayay ku taala meesha dambiga ka dhacay haday wuxuu saxaan leed maadaama gobolka banaadir dambiga uu ka dhacay gobolka banaadir maxkamaddu waxay xaq u leedahay madaxweynaha aado qofka inay diido laakiin waxa muhiim in la garto federal level maxkamadda sare oo kale inay hadasho ayaa fiicneed ma gobolka banaadir waa laga yar fiicnaa laakiin haddana waxay soo adeegsan karaan dambigu wuxuu ku dhacay xamar marka annaga gacan ku leh hadda waxay dhahaan waxa ka mid ahayd in ay kiis weli socdo waa saasan malinaya marka xogaa waa justi laakiin dadku waxay inta badan aad loo hadalhaya waxyaabaha isku soo aadiyay safarka ra'iisul wasaaraha iyo in maxkamadda ay maanta shaacisay arrinka aad bad maasad dadka qaar waxay isleeyihiin maxaa isku soo aadiyay ra'iisul wasaaruhu markuu tagay iyo maxkamaddu inay hadasho maxaa isku soo aadin waayay maxkamaddu maxay u hadli waayday markii deeqda nala siinayo bixinayay taas la dhigi karaa dabcan madaxweynuhu maxkamaddu mar walba go'aan way qaadan kartaa madaxweynuhu shaqo kuma leh waxan waa waqtigiisu uu dhamaaday diblomaasiyiinta inuu qaabilo waxyaalahaas laakiin markii xaq loo hadlo waxa lagu joogaa hadda heshiis siyaasadeed waxa la soo dhaafo waqtigiisii laakiin isaga madaxweyne ahaanaya ilaa laga gaarayo madaxweyne kala imaado waxa isku soo aadiyay waa arrin siyaasadeed waa orkacsi nabadii nolol sameynayaan laakiin waa khalad inaan anagu isku turturo sida ciyaalkii shacabkuna ina arkaan anu waan ka soo horjeedaa sideedaba gebi ahaan baan ka soo horjeedaa si kastoo soo horjeedna in halkaa gaadho ciyaalku iyo nagu sheekaystaan waa yara ceeb weeyaan markuu madaxweynuhu wax sameeyo laba dharbaaxadaad samayso de waana la yaabayaa hadda waxaa yiri beledweyne ciidamada soo noqdaan wasaarahu yiri de caliyaraa diidi karo gobolka banaadir ah oon xaqiiqo wada ognahay marka arrintu in halkaa kaloo gaadha ma waa laga yara fiican yahay inagoo ismacaaradeenna haddaanu shakhsi ahaan waxaanay mucaarad حاسكي ومعارض نو سوري حاسكي ومحافظ walaalkayna waa maxafad anoo marka mucaaradii aad u kala fog nooma diidin inaan guriga ku wada noolaano weliis marka waxaan dhihi lahaa madaxda laftoodu wax xogaa yani waa inay yara basal muujiyaan ayadoo la tartamayo oo da democratic iyo republic markii la tartamayo haddana wax la reebtaa jirto sharci ahaan maxkamaddu way saxsan tahay laakiin nabad iyo nolol waxay ka wadaa pressure ra'iisul wasaaraha ay ku saarayso waayo awood buu leeyahay waa fulintii isaga ayaa ugu sarreeya maxkamaddana hadashay waxay yara habooneed xataa xiriiraalihii hore u hadlay inuu isagu soo hadlay ayaa fiicneed marka waa arrin siyaasadeed garsoorkii oo ku milmay siyaasadda sida saxdan oo adiguba garanayso shacabkuna ay garanayaan waxay ahayd inay kala bannaanadaan garsoorka baarlamaanka iyo fulinta
madaxweyne farmaajo markuu imaanaya uu noo ballan qaaday laakiin nasiib darro waxay noqotay af garsoorka inay waxay noqotay af waan markii hore waanu ka filaynay madaxweyne farmaajo markaan saa leeyahay markuu imaanayay inuu xaq u leeyahay kursiga uma naansiinin oo wuxuu xaq u leeyahay farmaajo hala siiyo laakiin waxaan u siinay inuu mudan yahay oon u aragnay marka waxaan u siinay maadaama ay privilege u mudnaa haddii marka uu garsoorkii isku daro macnaheedii mudnaantii shalay aan u maleynay waa laga waayay saas darteed waa in dalka qof ku habboon oo lasoo tijaabiyey loo dhiibaa habboon intii aan mar walba aan shallaayi lahayn yes please farmaajo laakiin dalka intuu joogay waxyaabo badan oo lagu ammaani karo oo qabtaa jirta Soomaaliya ha طبعا arrimaha dibadda oo kale gobonimo ku soo hoyay markii la yiraahdo ciidanka inkastoo ra'iisul wasaare uu joogay khayraba la qabtay wax weyn oo qabtaa jirto laakiin fashilkiisa ayaa aad u inta dambe ayaa batay waxaana keenay markii dadka kula shaqeynayo ay mar walba ku amaanayaan haddaad khaldan tahay ay shaqana ka dhigtaan cidda ka soo horjeeda inay caayaan taasaa keenaysa khaladka madaxda lafteedu is loobaysaa mar walba shaqo markay socoto mar walba qaladna uu imaanaa gaabisna uu imaanaa aan ka gudubna inta aan kaga gudubna mar walba Soomaaliya xilli doorasho ay gal rabto dadku inta badan waxay isweydiiyaan safarada imaaraadka bato oo madaxda ay ku aadayaan dhanka kale Qatar iyo imaaraadka mar walba Soomaaliya ay doorasho ka dhici rabta waxaa la wada ogsoon yahay in saameyn xoogan ay ku leeyihiin cid soo bixi doonta iyo arrimahan sidee lagu joojin karaayo sidee kale waxay noqonaysaa in nin la madax soo ma noqonaysa nin la maalgashto inuu soo baxo waana sababta aan u dhahayo dalkan wuxuu u baahan yahay madax hadda la hubo inay nadiif yihiin dambiye soo gelin ay mudan yihiin aan ognahay intaan ku nasiibsan lahayn saasaan u leeyahay dhowr jeer aan ku celiyey wuxuu maahan xaq laakiin waxa weeyaan mudnaan su-aashaad markaan ka jawaabo Ismaaciil sababta ay u tageen ra'iisul wasaaraha iyo kooxdiisu ay u tageen imaaraadka waqtiga doorasho ku soo aaday ama madax walbaba waqti walba u tagaan mid waa mawduuc kale annaga hankanaga maxaa saa u galay markaad saa tiraahdo laanna xalan oo joogta raalli kama ihi maalin walba 900 oo qof aa joogta Soomaaliya annagaan halkaas isgaarsiinay 900 qaar waxay leeyihiin waxaad ga dhigtaa gudoomiye gobolka Banaadir idib wasiiriga dhig xil annaga halkaas isgaarsiinay waan ka xumahay laakiin imaaraad haddii la tago waajib weeyaan because xiriir waxa la leeyahay waa muhiim weeyaan aad bad ma haysatay wasiirada halka joogaya safiiradaha iyo hay'adaha ayaa lagu dhahayaa inoo dhib annaga halkaas isgaarsiinay waana khalad farmaajo xogaa dhinacaas uu ku yara fiican yahay khaladkiisa kala waa batay okay marka dhinaca kale imaaraad arrin aan waxaan ahayn diblomaasiya markii siyaasadda laga soo tago imaaraad hadda annaga iyagu xiriirkii hore ayaa soo wanaagsanaanayo faragelin bay nagu haysay in dib wax loo soco ay waxayna tustay for example jash ayayna tustay ina xogaa marka inaan tagno oo aan xiriirka wanaajino bal haddayna ayagu doonin in anagu codsaneed xiriirka aan wanaajina asalku ma ahan in la iskhilaafo laakiin asalku waa in la hagaago marka waxaan ugu daynahaa laakiin markii Rusaaru markuu arkay in xiriirka wanaajiyeen abaalmarin muxuu uga dhigay in lacagtoodii loo daayay marka in laga hor imaado meehana waxay ahayd madaxweynaha iyo cid walbaba in la waafaqo ana saasaan qabaa laakiin haddana markay garsoor markay gaadho waxaan uga dambeynaa gobolka Banaadir ha noqdo hooseeyo ilaa kuwa kale ayaan uga dambeynaa imaaraadku ma ahan cadow azali ah Ethiopia iyo Eritrea markii horeba cadow nala hadda saaxiib ay naliyiin anu haddaan ka imaado waan soo taa waxaan kamid ah dadkii TPLF ka soo jeedo dawladda arrimaha dibadda waan ku taageeray anaa lacagteeda bixiyay Ethiopian tagay waxaan tagay ilaa xadka waxaan tagay Eritrea maxaan sameeyay wax naga dhaxeeyaa jirto marka nabad in laftooda gartaan dantooda kaliya bakaas ay qadar baa lacag soo siisay qadar iyo imaaraad maxaa u dhaxay su'aashan kala hadlayo waxa tahaba sidee lagu yareyn karaa in saameyn ay ku yeeshaan mar walba cid soo baxaysa imaaraadka iyo qadar aad baad u mahadsan tahay waxay ku yaraan kartaa hadda anagoo maanta ka dhigno waxaan ognahay haddii ay dhacdo in qof ay soo saartaan hadday doonto in qofkaas in dalkaasi dalal badan madaxooda uu xiriirka laga yaabo inuu ugu jiro uu ka tilaabsan waayo wax ka qaban waayo xitaa sida lagu eedeeyo madaxda qaar waa sida hadda taagan qadar waxaysan doonaynin dawladdu ma samayn karto xaqiiqo jirto weeyaan way kharaadha inay idhaahdo laakiin waan ka xumay waa xaqiiqada jirto qadar wixii imaaraad iyo sacuudi iyo ma doonayso annaguna xiriirkii inay hagaajiyaan baan rabnaa ma doon yani adduunku wuu iska jira hadda maraykanku ma doonayo annagu ban african baan ka mid ahay okay maraykanku ma doonayo China iyo inaan la sameeyno xiriir annagana dad baa noogu jirta marka waa runtaa wax weeyaan seen u yareynaa in dawladuhu annaga mustaqbalka annaga ay ku gorgortamaan oo dalal kala coleystaan annaga noo waxa lagu coleysan karaa hadda inay xildhibaano tayo leh Soomaaliya markii laga tago maxaafid mucaarad xildhibaano tayo leh beel walba inay soo saarto waan ku celceliyay
haddii laakiin inta manxiis laga dhigo qofka soo baxay markuu sii socdaanu gareen waa dhibaato labada dhinacba okay midda kale waa inaan madaxweyne dalka u qalma anu intaas in badan baan ku soo celceliyey madaxweyne dalka u qalma oo mudan dembi aan lahayn aan hadda saaranno si aan berri aana u shalayn mana qabo dalkay doonta noqoto adduunku zero problem with neighbor waa inaan baranaa waa inaan caalamka u arag inay mataqaanaa cadow nagu wada yihiin nabadii nolol waxa muhiim inay wax badan bedelaan waayo berri waxaan waa lagu maxkamadeyn karaa dembiye badan oo ay galeen baa jirta waxaa laga dhigay turko wadaniyad ah waxaa dadkii loo sheegaya waxaan jirin dalalka haddii interestiga saaxiibadood ka hor imaadaan waxaa laga dhigayaa cadow arrintaas waa khalad weeyaan waxaan dalka annagaa iska leh qadar ma lahan inay waxay noo sheegtaan fulina ma ahan okay imaaraadna mar walba cadow naguma noqon karta hadday mar nagu dhaceen mana yeelano mana aqbalino kenya iyaga laftiisooda kale kenyana sidoo kale dembi bay naga gashay waxaana ka mid ahaa dadkii for example markii dhibaatada lagu sameynaya jubbaland oo dhan geda keliya maan iyo hormuud waxaas o dhan ba kasoo horjeeday waxaanu la jirnay marka ayaguna ha isbaraan bal horta ha isbaraan in madaxweyne farmaajo hadduu saxsan yahay hadduu khaldan yahay tiimkiisa garsoorka iyo cid walbo la jirta inaysan raacin laakiin ay isyara furfuraan oo ay gartaan ownershipka naga dhexeeyo dowladduna waa heshiis bulsho iskama lahan madaxweynuhu ma lahan xaq u leeyahay maahan dad buu u dhiibtay dadkii buu adeegayaa marka waa rabitaanka shacabka inuu ku shaqeeyo the government waxa weeyaan democracy is a government of people from people to the people sida abraham uu leeyahay waa dowladdii shacabka ka timaada shacabka oo shacabku u adeegaysay laakiin xildhibaanku markii lasoo saarto kuraasta iyo codadka maamul walba ka soo baxaya marka uu madaxweynaha maamulkaasi uu ku tashanay meel gaara inuu geeyo oo saan ognahaba iska cad dhinacyaha istaageersan sidee ku dhacay in go-aano ay qaataan dadkii soo baxay suurtagalnimada ay ku dhici karto intee waxaa laga naxo dabcan hadda Soomaaliya jaanis bay haystaa si kastoon soo khilaafsanay safaaradaha dad badan baa la kulmay hay'adahu dhammaan waxa la sugayaa doorashada inay dhacdo shidaalka waa la soo saarayaa waqti dheer ma gaari doonto marka xildhibaanadu waa soo xulasha doorasho ma jirto cid walba ay garanaysaa selection marka selection kaasun xataa hadday saa ku soo baxaan oo aan wax ka qaban wayno waa inaan u diyaar garownaa dhammaantanadu inaan ayaga laftooda bedela si madaxweynaha ugu fiican ay soo baxaan inay soo saaraan haddaan awoodnana waa inaan yareennaa dadka ugu xun inay soo baxaan haddaan ku guuldaraysanana waa in intii soo baxday aan waa dadku waa Soomaaliya haddii qofka lagu celiyo uu qaadanayaa in qofka ugu habboon ay waana hubaana dadka soo saaray inaysan u codeyn doonin haddaba dadku way maqlaan qof kasta qofku soo saar hadda uu soo saari karaa laakiin kuma qasbi doontid because qofku waa muslim xaqna kuma lahan inuu codeeyo qofka maanta lacag ku soo saaray hadduu u codeyn waayo oo ka diida wallahi janno ku galaya leena waa dhulmi la taa'ata bi makhluuq fi ma'siyati al-khaliq wa hadis qofka inuu Soomaaliya duleeyo lacag ku wada kuwan joog ha noqdo madax kale ha noqoto oo musharaxiin kale ha noqdo waa khalad marka musharaxiintu xataa hadday khaldan yihiin waa loo bedeli doonaa markaa fiiriso gabagabadii barnaamijka ka soo gaarnay markaa fiiriso doorashadii 2016 ka dhacda dalka iyo middan hadda la filayo inay bilooyinka soo socda ay dhacda maxaa farqiga kuu muuqanaya dhanka xiisaha markaad ka fiiriso ay leedahay doorashadan madaxweyne xasan aanu lama jirin dabcan laakiin weligay halkaa ma gaarsiinin waxyaalaha aan kula jiray inta hadda shaqaale jirto isagaa shaqaaleysay aniga isagaa shaqaaleysay dabcan shaqaale dowlanaha isagaa shaqaaleysay 6,000 qof madaxweyne farmaajo hal qof ma shaqaaleysin taas waa number 1 maamul goboleedyadii iyo dowladdu wada shaqayn jireen waqtigaas alo marka hadda ma taageersan musharaxa markaan maamul goboleedyadii dowladdu wada shaqayn jireen caalamka cadow uma wada arki jireen qofkii dowladda ka soo horjeeda sabotage ma naandhay jirin hadda qofkii dowladda dad wax yar wax ka sheegto aniga hadda marka hore way amaani jireen nabadii nolol maanta waxay wada yaqaanaan qaran dumis dhammaantood okay waxa kale u dhaxeeyay doorashada oo la gaarin ayuu ka baxay gabaan isaga baxay madaxweyne farmaajana ilaa hadda wuxuu isku dayayaa waqtigiisoo dhamaaday inuu awood isticmaalo inuusan ka nixin dalkan inuu dagaal galo xataa in sanad la dhaafay ilaa hadda in Soomaaliya qabyaaladda ay soo kordhay wax qabyaalad anagu shakhsiyan dabcan madaxweyne farmaajo su'aal baa jirta nin baa wuxuu yiri madaxweyne farmaajo dabcan markuu imaanayay 3 maalin baa dabaaldegay Soomaaliya haddii qabyaalad jirto dadka dabaaldegay dadka u badan waa la yaqaanaa waa gartay laakiin soo lama dhihi karo farmaajo mas'uuliyadda doorashada keligii gacanta uma jirino maamul goboleedyada naftirkooda caqabad bay ku hayeen soo lama dhihi karo maxaa farmaajo kaliya oo eedanay labada maamul gobol hadda ninka ugu dambeeyo diiday inuu imaado waxa ahayn qorqor markii dambe uu imaado wuxuu ahaa lafta gareen deesaa ka dambeeyay dabcan way iska caday dhibaatada xasarada jiro waa saad fiir gobolada marka ay gobolada waqooyi waa saaxiibkii ra'iisul wasaar ku-xigeenka inkastoo uu wax fiican qabtay markii badal eego
marka madaxweynuhu kaliya ma ahan dabcan ha lana Jubbaland iyo Puntland laftooduna waa xulafo ayaguna waxay ciyaarayaan goolka midda kale doorashada sideedaba la suma naxariisto in la xad gudbo baan isku dayanaa maahina cidda kale inay guulaysto doonayso ma jirto laakiin markii la isbarbar dhigo madaxweyne xasan waqtigiisa boqolkiiba boqol ka fiicnayd waqtigan waa gartay Mareykanka iyo beesha caalamkaba 40 maalmood ay qabteen haddii doorashadii ay sii dhaafto maxaa laga filanaya taas ma qabo Mareykanku inuu soo fargashto arrimaha anaga gudaha inuu anaga mucaarad hadda maanta nala jiro kuma waafaqayo lana hadda anagu nala jiraa weligeena kuma waafaqayo lana waa dalkayga Mareykanku marra Soomaaliya muusan doonin inay wax hagaagto because wax lacag uu ku bixiyay ma leh markaad gasho page-kiisa 6 bilyan 6.3 bilyan ku qoran waxuu noo qabto tan jar lama leh noomana ogolo inaan China iyo xiriir la yeelano wuxuu la doonayaa inuu iska hoskeena isagaana kamid ah isagii TPLF baa kamid ah in maanta maamul goboleed dawladda ka barbar ordaya inay dhismaan oo isku mashquulo laakiin beesha caalamka markii la yiraahdo waa dabcan waa laga xumaanaya dabcan waa arin khalad ah waa inaan isa saxnaa waa in ay dabcan anagu saxsanaa laakiin maba ku dhamaan kartaba maba ku dhamaan kartaa because iyagoo la'aantooda inaysan sidan u bilaaban lahayn ma waxaas ma jiraan waxaas waa iska hadlay 24 bishii la soo dhaafay November hadday gaadho ma bixinayna weligood way dhahayaan haddaan xataa 5 bilood dib u dhigno ma hadli karaan ani inuu dib u sii dhacdo dhibaatay keenaysaa laakiin inta badan waxay aaminsan yihiin dalka in beesha caalamku maadaama Soomaaliya ay kabto waxyaabo badan ay ka saacido in markii hadlaan xaaladda ay cakiran tahay in wax kala furmaan tuugo weyn dalkayga ay dhaco macdanta dalkayga gurtaan kalluumaysiga gurtaan ayaga nagu isku dira marka marra taas ma yeelayo shacabkana been uma sheegayo nin inuu lacag ka doonayo darteed u dhahayo mihi laakiin beesha caalamka anagu waan ixtiraamayna haddii khaldiin xataa waan la soconaynaa anoo saa u nacab xataa waxaan doonayaa inaan xiriirka Mareykanka hagaajino markaas lama kala maarmo talada waxa weeyaan waxaan dhahayaa nabad iyo nolol yeysan ka dhiganin siyaasadda iyo garsoorka waa inay kala madax banaanataa arrin kasta oo ku kacsi in laga dhigo shacabka looga dhigo wadaniyad waa laga fiican yahay hana la dejiyo doorashada garsoorka arrinta laakiin maxkamadda waxay u taallaa waa arrin garsoor arrinta tartiib ha loo eego yaan la siyaasadeenin wax walba haddii arrintii garsoorka la siyaasadeeyo arrintii ciidanka la siyaasadeeyo beledweyne aad aragto arrin yani waxa dalku faraha nagu ka baxaya haddii maanta aan isqaban waynana chapter 6 baan la gelinayaa way noo dhamaanaysaa laakiin ilaahay waxaan ka baryayaa inay si wanaagsan ku dhacdo oo dalku doorashadu noo dhacdo insha Allah